Aan ku horeyna ku dhawaad 9,000 oo qoys ayaa ku barakacay fatahaado ku dhiftay magaalada Beledweyne iyo deegaano ku xiran. Daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo maalmihii u dambeeyay ka da'ay gobolka Hiiraan iyo qaybo ka tirsan dalka Itoobiya ayaa barakiciyay kumanaan qoys oo ku noolaa xaafadaha magaalada Beledweyne. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena gobolka Hiiraan. Dadka ugu badan ee magaalada ka barakacay ayaa waxay isugu tageen deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow ayaa waxa uu sheegay in 30% dadka magaalada Beledweyne ay guryahooda ka barakaceen. Dadku waxay ka soo barakaceen laga bilaabo magaalada Beledweyne ilaa iyo dhanka waqooyi oo idil. Tuulooyinka dhanka waqooyi magaalada Beledweyne ka daga ee webiga saaran dhamaantood waa laga soo barakacay. Waxaan u tagnay hadee dad meesha ay deganaayeen inta biyo uga soo baxay aan waxay sitaan aan la arag oo geed hoostiisa ilmihii daadiyay roob ku kor socdo mas'uul aan lahayn biyo aan lahayn wax la cuna aan lahayn wax la caba aan lahayn wax la hugsada aan lahayn waxayna ku barabaxeen si ay biyaha naftooda uga badbaadiyaan taagaga u dhow webiga dhinaciisa. Magaalada Beledweyne xaafadaha laga barakacay waxa uu maartay ugu daran dhammaan xaafada ku timbo xaafada raadarka xaafada howladaha dhinaca siliga ee Ameerikaanka buundaweyn xaafada suuq xoolaha iyo kawaankii iidow xagiisa dhinaca baacadada oo kuligii waraabalo oo gadaal ugu soo celiyay marka xaafad magaalada Beledweyne ka nabad gashay ma jirto tirada qoysaska ilaa iyo 9,000 oo qoys aan hadeertaan qiimeyntii aan isku keenay iyo ururintii iyo xogtii saasan hadda qiyaasaynaa. Dahabo Daahiye Cabdulle waxay ka mid tahay dadka ku go'doonsan xaafada Xawataako waxay sheegtay in dhammaan dadkii xaafada la deganaa ay ka barakaceen fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle. Dad tiro yar oo ku haray xaafadana ay tabarta u diiday inay barakacaan. Waxay ka baxeen biyaha farada badan oo intaba aad ka arkaysid oo maxaan ku ihaadaa aslooda dhinac baa naga jooga hadda ay ka baxeen dadku. Aniguna waba ka bixi weyno dhaqaale daraabska diidaday rabto. Marka biyaha goormay xaafadu ku soo bilowdeen oo dadka inay barakacaan ay bilaabatay. Dadka xaafadaha midba maray barakacday xaafada ku tiibaliina 2 asbuuc ka hor barakaceen xaafada dhagaxjibis laakiin asbuucan ay barakaceen. Marka dadka xaafada ka barakacay maxaa ku qiyaas kartaa tiradooda boqolkiiba intee gaaraya? Boqolkiiba 95 waa ka barakaceen waa la barakacay. Waxay aadeen Ceel Jaalle buundo aroos iyo Ceel Gaal. Marka biyahan dadka xaafada barakiciyay iyo xaafadaha kale ma laga hortagi karay? Maya biyo la hortagi kara maahan. Biyo Ilaahay wato muujid waa biyahan. Biyo Ilaahay wato waayo oo xareed iyo webi isoo darsan waa biyahan. Wallahi cabsi waa jirta laakiin tawakkaltu ala Allah Ilaahay baan tala saaranay wax dhiba Ilaahay ka rajaynayno. Maxaa laga baqayaa? Waxa laga baqaa biyaha waa ka baqaynaa baalka soo baxa waa ka baqaynaa wax qaatira waa ka baqaynaa guryaha loogu soo galo waa ka baqaynaa. Marka biyo hadda inta xaafada geesaheeda aan ku arkayno wax ka badan haday yimaadaan maxaa idin qorsheysan? Wallahi waxa noo qorsheysan hadda kadib ma bixi kala soo maahan. Dabaan weyn waa soo marteen oo malayna dhagax jibis dhaxda iyo ku dhawaadkeeda jimarana leegu yiro bariyaan ma tagin wiigina waa kan oo maxal amar kara maahan. Waxa noo qorsheysan inaan geeda fulo wala barada meelaha barada laga jirta xaga rooyinkaas aan tagnadii Ilaahay qadartiis ku dhacdo in ugu soo fatahaan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Sufurow ayaa waxa uu sheegay in qatarta fatahaada laga cabsi qabo inay sii kororto maadaama roobab mihigaan ah oo maalmihii ugu dambeeyay ka da'ay dalka Itoobiya biyo ka soo rogmaday ay ku soo fool leeyihiin magaalada Beledweyne. Hadda 4 qoys iyo 5 qoys oo masiibo ku dhacday waa magaalo dhan oo maaragtay insha Allah barakacday Ilaahay baa maaragtay badbaadi kare laakiin waxana u gaara oo aan qaban karna ama aan u haynaa ma jiraan. Fatahaadii dhinaca Itoobiya waa nagu soo socotaa taasi way soo dhaaftay Burdhiinle iyo Deefo iyo hadda waxay soo maraysaa Bacaad meesha la yiraahdo soo maraysaa biyahan hadda barakiciyay noo xoog sheegtay magaaladii boqolkiiba maaragtay 35 laga baxay waa biyihii xareedaha roobkii da'ay iyo webiga buuxas la keenay waadiyaasha nagu soo rogay hadee tan hadeertaan magaalada naga saartay waa xareedii waa 2 sano ka hor ay ahayd markii dadka magaalada Beledweyne ay guryahooda uga barakaceen fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle iyadoo sanad kadibna magaaladu ay noqotay mid biyo la'aan ah kadib markii webiga Shabeelle wax biyo ah laga waayay.